doonaa wax badan markan waxaan rabaa inaan u yeero Sayid Maxamed Yuusuf oo kamid ah martida inooga timid magaalada Stockholm ahna sidoo kale qoraayo waliba afwaan isagana qosolkii iyo wax ka sii sugeynaa أنا مش موارد ويمشي في يوم لا قصة ما حرينا نريد تقولي ويروسي قديمينو كل ذا وحين هراء أبوه بس كنت رصدت تيم هراء أنا بقولي أول يريني سوق لسنا سوقا runtii waxaan jeclay inaan buugga qorayo aan aad u sii dheeraan waa buug kaliya ayaa halkan yaala waana buugga la yiraahdo socdaalkii dheeraa waa laga yaabaa ninka uu ku saabsan yahay oo la yiraahdo guuleed inuu halkan degan yahay oo uu joogo maanta Göteborg yaanan dhaafin magacaygu waa Sayid Axmed Maxamed Yuusuf ku dhashay magaalada Sheekh waqtiga sheegi maayo kulliba wariyaashayga waaweyn baa garanaysaa laakiin sida kale maasha Allah kulliba xilli badan waa jiray alxamdulillah rabbil caalamiin maxamed isagu sidii suuliska wuxuu yidhi xaasna waa ahay caruur anna inaan halkaasi maro yaan dhulay qabsan anna xaas baan ahay saddex hablood baan leeyahay maasha Allah waxaan jecelahay runtii aan weyn meel yar waxba ka duwan aan looga yeertaynayo oo ah suugaan baa inta badan ka hadlaynay gabayo maxamed tiriye mubarak ku tiriye soo gabayo tiriye waliba wuxuu dhex galay runtii mucdi xagga suugaanta uu dhex galay haddaba suugaanay maxaa tahay waxaan jecelahay halka baad maxamed uga caawiyo waxay ugu jiraan waxay noo sawirantay wax la yiraahdo gabay ama maanso guud baa inuu macna waxa la yiraahdo maansada waxay noo sawirma suugaan marka la yiraahdo miyigi iyo wax inaga fog waxaan jecelahay maanta inaan la wadaago reer Göteborg suugaantu inay ku soo ururayso meel aan ahayn miyigi ee ay xaafadda Soomaaliya bibliotheek maktabadani waa suugaanta way suugaanta hadaynu markiiba u sawirano suugaan marka la yiraahdo inay tahay wax inaga fog ama wax hore oo gabayadii hore la tiri jiray hadaynu u qaadano waxa laga yaabaa in xiisu ka luma dhalinyarada halkan ku dhalatay ama sidoo kale ku dhalin gaadhay marka kullayba waxaynu u baahanay inaynu fahanno suugaanay maxaa tahay in yarba markaa inooga soo diyaariyey suugaantu sideedaba inkastoo siyaabo kale la sheego waxa loo badan yahay oo la yiraahdo waxa ay u kala baxdaa wax la yiraahdo tix iyo tiraab waxaa laga yaabaa kullayba ereygu looguma cusba in badan way maqashay laakiin maxay kala yihiin tixdu waa waxa gabayga la tirinay maasoo dhan hees hawleed wax alla wixii khaafiyad leh ama magaranaysa xarafraac gabay ha noqoto geeraar ha noqoto magaranaysa maxay hees ha noqoto waa tix weeyaan tiraabtu way ka duwan tahay waana taa aan doonayay inaynu fahanno tiraabtu waa tan ka buuxda maktabadaha taalla waa sheekooyinka lama awaalo ee la qoro sida imka sheekada maxamed ka sheekeynayay buuggii la oran jiray dumar talaba laga dayay waa mufakkir baa fikray qoraaba fikray qaabku uga hadli lahaa markii dawladu wuxuu idinka yar sheekeeyay si yar sabeeb oo idin sheegay oo ahayd in marti ay timi ay soo martiday reer waxa aan jeclay halkaas sii jixiyo ujeedadu waxay ahayd waqtiga gumaysigu yimi waa laga yaabaa in badan inay fahmin waqtigu gumaysigu yimi dhulkeena dhulka Soomaalidu degto dadku waxay u arkeen marti Ingiriis ha noqdo Faransiis ha noqdo Talyaani ha noqdo martidii way sooriyeen waxbay siiyeen laakiin sidii martida lagu yaqaanay way noqon weeyeen waa kici waayeen dabadeed waxay noqotay afka loo toolay door ma tagaysan iyo xagaan tagay halka uu socday waa halkan waa sarbeebta sida ku jirta buugga uu qoray Maxamed oo kale haddaba tixdu iyadu waa taa gabayga aynu magaranaysaa maxaadayaan aynu markaynu maqlayna macnaha ha noqoto gabay ama ha noqoto geeraar waa taa waxay haddaba markaa ku kala duwan yihiin tiraabtu inta badan tiraabtu ma aha qasab in sideedii loo tiriyo imka gabayga uu tiriyey mubarak ama maxamed waa inaan u tiriyaa siduu ahaa haddaan wax ka bedelo waa qalab laakiin waa inaan sideedii waa inaan u tiriyaa tiraabta looma baahna in sideedii loo soo celiyo waxay noqonaysaa inaad sheegto nuxurkii sheekadu ay ahayd taasi ku kala duwan tahay waxaan jecelahay haddaba inaan in yar inooga soo qaado maansada oo inta badan waxaynu aada u maqalnaa maanso gabay waxaan odhan karaa gabaygu u malaynmaa in abwaanadu igu qabsanayaan waa libaaxa maansada ama waa meesha ugu adag ee
laga galo maansada waa gabayga laga yaabo in buraamurkuba ka adag yahay waa buraamurka waxa gaar u leh haweenka ayaa gaar u leh dad badan waxay isku raacsan yihiin sida caraare ninka caraare la yidhaahdo ee miisaanka wax ka qoray maansada in uu buraamurku ka mid yahay kuwa ugu adag marka laga yaabo in buraamurku ka horeeyay laakiin raggaa isa siiyey in gabaygu yahay gabayga garanaysa ka ugu adag waxaan jeclahay haddaba gabay maxaa ay ku kala duwan waxaa marka leeyahay gabay laga yaabo dhalinyarada inaan kala fahmayn gabay geeraar guurow shirab saar maxay ku kala duwan yihiin habkan ay u dhacayaan ayaa midna raab yahay midna uu yahay maxaa la yidhahdaa dhalinyaradu si fiican u garanaysaa qaababkan kala duwan ee loo tiriyo heesaha musiga loo tiriyo ayay u kala dhacayaan iminka aynu soo qaadana gabaygan oo kale ilaahay naxariista ilaah ka waraabiya waxaa tiriyay cabdigahayr in la odhan jiray oo caan ahaa oo aada gabayga caan ugu ahaa in yar baan ka odhanayaa waxa uu yidhi macnaa siduu u dhacayo ma jeclay inaynu isla maqalno waayo gabayay ahaayeen mubaarig iyo maxamed bad way tirinayeen in gar xidhata ama guudka debigebiga soomaali waa taagayaan dumar ku nacay lama gubaantiye adna geela waxaan kaaga maray gaarigaa tahay si taagtaagan buu u dhacaya qofka macnaha marka lasii dhex galo waxay u baahan tahay macnaha sharaxaad kale oo hoorsi waxyaaba badan baa loo qaybqaybiyaa laakiin waxaan jeclahay in degtiinu ay yara maqasho gabaygu siduu yahay cali cilmi afyare ilaahay naxariista ilaah ka waraabiye ayaa isaguna gabaygan aan in yar ka soo qaatay gabayga laftiisa ayaa qaabab kala duwan ah laakiin taa ma doonayaan inaan sii dhex galo rag badan baa iga aqoon badan taa dhex geli kara laakiin waxaan rabaa bayska hore inaynu isla fahanno cali cilmi afyare gabaygan isna waxa uu leeyahay daruur curatay daad soo rogmaday dilalyada roobka dooxooyin buuxiya xaleed lagu dikaynaayo diibkiiyo cagaarkiiyo dhulkoo doogu ku ekaaday isna sidii oo kale ayuu dhacay waa gabay haddaba aynu raacsana weliba gabay kale oo isna qaab kale u dhacaya laakiin gabay ah ilaahay naxariistana ka waraabayo halkii mubaarigee dee waxaynu in badan baa maanta oo abwaanadii wax badan laga tuujin lahaa runtii way geeriyoodeen waxaana jeclaan lahay faatixada loo maro abshir bacadle ayaa isaguna gabaygan qosol iyo qamuuyo isku xiga qaadoo adigaa le qasad daar ah qowl aan la fudi qaadoo adigaa le cimri kuu qoraa qayb ka lumi qaadoo adigaa leh qalbiga fuqurka iyo quus rageed qaadoo adigaa le raggii qayb jiradii joogayn waxaana qayaanay calaa kulli xaal waxaan ka socon gabayga haddaba geeraaro maxaa tahay imika waxaynu isla yar fahamnay gabaygu qaabku u dhacayo geeraarku wuu ka duwan yahay waxaanaad moodaa beryahan dambe inuu sii dhimanayo waxaanan anugu u aqaanaa geeraarku inuu yahay kii ugu xaragada badnaa ee fardafuulka marka fardaha iyo dabaaldega marka la samaynayo geeraarka ayaa lagu dabaaldegi jiray waxaan soo qaatay in yar oo ilaahay naxariistana ka waraabiye cabdillaahi sultaan timcadde geeraarkiisi caanka ahaa waxaan ka soo qaatay in yar laakiin waxaan rabaa siduu u dhacay inaynu isla yar aragno anigoo sabiuunahoo way ka duwantay sidii hore anigoo sabiuunahoo sita leeb yaqaanso siigadoon isku maqaasiyo saba reerka fogaanino laygu aaminin soofkiyo saaca maanta aan joogo gabaygu waygu sugnaaye haddii aan sartariigo way ka duwantay waa degdeg baa ku jira gaagaaban u gaagaaban yahi haddii aan sarsariigo ama aan sarmaseeja amaba aan sixi waaye ama aan ka salguuro amaba laygu salugo soomaalida maqlaysa ay saluga hadhow uu ka sii afeef hadhow taasina waa taa saar baa jira waxay tiri runtii guuroo baa jira shirra baa jira way fara badan yihiin saarka oo kale runtii nin ciise kaarshae la odhan jiray ayaa caan ku ahaa dhowr qof oo dambe oo tiriyana waan arkay waxaanu kaga qurux badan yahay waa la isla jiibiyaa oo haweenbaa la jiibin jiro sina qurux badan bay u dhacdaa waxaan ka soo qaaday ha looxa lagu dhigaa higaad waa la akriyaa hagaag waa loo socdaa hor waa loo waa laga yaabaa si qaabka qurka badan u akriyaa u akriyin laakiin waa qaab gooniya soo maaha hagaag waa loo socdaa hor waa loo sii hoydaa hadal waa la hindisaa hadii kale waxaa lahaa marka haahey ayuu odhan jireen haweenku idinku malaa reeriytu in badan baynu maqalo iyadaba odhanaysaa هذه كان وحنا لها runtii wuxuu sharxayay iyo laakiin ujeedadaydu waxa weeye macnaha habka u dhacayso walays bay hooyadu ka hadlaya way lafteedu waa arrin qaadaya oo runtii aad iyo aad inoo taabanaya
inta badan ma qirraban malaya laakiin se waa arrin qof baynu u qirraa laakiin si guud inaynu qirro oo hooyadu waa lama huraan tallaabtay la hakato xanuun bay u hingatay hooyadu waa lama huraan saa kula qaabkaas u dhacaya waa qaab magaranaysaa haheydaas ayuu isna u dhacayaa ujeeddadaydu suugaanta waa isku soo duuduubayaa oo ragga suugaanyahankii hadday sii dhex galaan sidaa uu waariba inoogu tilmaamayay sila sugan iyo way fara badantay qaabkeedu iyo waxay u baahan tahay in loo barto hab fara badan laakiin anigu waxaan yaro jeclaystay dhalinyaradu in aanay u fahmin un wax aan la kari karin ee waa wax la baran karo una baahan dadkeena weliba qurbaa joogaa inay bartaan baadhaan wax badan oo aan u baahnayn in lasoo qaatana ha iska qubaan laakiin wixii ay laga qaadan karee quruxda badan leh in laga qaato oo aan loo eegin hebel oo ayuunbaa gebi jiray suugaani ma aha suugaani way ka ballaarantay suugaani library-ga bay gelaysaa baan macnaha idinka bilaabay hadalka waxay gelaysaa waxa buug yaalla ee halkaa camiran ayay suugaantu soo gelaysaa dhinaca kale waxyaaba badan inagu aynu ku faarayno maahmaahdeenna gaarkaa sarbeebta halku dhega awraarta way fara badan yihin suugaantana ereyga siduu tilmaamay mubaarak waxa weeyaan erey runtii berigii hore dee iskuullada markii lagu dhigay jiray suugaan baa la odhan jiray laakiin suugaan ereygan waa afka soomaaliga ka mid ah qaabab kala duwan oo qurux badanna loo yaqaano oo runtii macnaha markan dambe un loo qaatay inay suugaantu tahay afka halka ugu quruxda badan gabayo uu ku jirayna runtii maxamed baa diiwaanka inoogu hayo oo suugaanta gabay halka haddaad ii yar saxdo gabay runtii ka hadlayay macnaa erey ahaan suugaanta gabay maalintaan sadar ka sheegayo abidkii masalan seeriyo waan susumiyahay macnaa ninkaas isagu suugaantii buu ka hadlaya toos u tilmaamaya waana waqti hore 1930 suugaan biblioteek markaa kusoo koobay suugaani inay biblioteeka taallo qoon literature waynu naqaanaa wax alle waxa buug sheeka ama la awaala la alifay ama ha noqoto mid la alifay ama ha noqoto mid la alifay laakiin runku salaysan waa suugaan ereygaas suugaan waxaan rabaa inaynu ku sidhigno biblioteeka waxa yaalla iyo aan ka ahayn wixii aqooni waa gooni laakiin waxa kale ee yaalla xitaa waxa soo gelaya waxyaabahan artiska la yaala soo gelaya wax badan baa soo gelaya suugaantu waa tahay inoo taalla biblioteeka waa tahay inoo taalla ma aha mid aynu ka sugaynin miyigii iyo waxaa laga sugaya dhalinyarada halkan joogtaa inay iyagu ina baraan oo inooga sheekeeyaan ay baaraan weliba isbarbardhigga suugaamaha kale suugaan lixdankii gabayay maaha in laga sugo maaha waa fariinta maanta jecel iyo maaha waa dhalinyaradan baa laga sugayaa inay iyagu ina baraan taa waxaa jeclay waxba inaan ku dheeraan maktabadda iyo magaranaysa dardaarankayagana aan halkaa aan ku sii darsaday buugaagtu dalka way buuxaane in la iibsadana mala way sugayaan haddii